Waan idin salaamay akhyaartii qiimaha lahaydow. Maanta waxaan jeclaystay inaan xoogaa yar aan idinkala wadaago taariikhda Ibraahim Traore. Magaciisu waa Ibraahim Traore. Waxa uu dhashay 14kii Maarso 1988. Waxa uu ku dhashay tuulada Kera, gobolka Muun ee dalka Burkina Faso. Diintiisu waa Muslim. Waxa uu xilka la wareegay Oktoobar 2022. Da'diisu waa 37 jir. Noloshiisii hore waxa uu ku noolaa tuulada Kera, halkaas uu ku soo qaatay waxbarashadiisii. Waxa uu jaamacadda ka bartay cilmiga geologiga. Waxa uu jaamacadda ka qalin jebiyay 2009. Intii uu ardayga ahaa waxa uu ka qayb qaatay ururada ardayda muslimiinta, isagoo muujiyay hogaamin iyo firfircooni bilowgii shaqadiisa ciidan. Kadib markii uu dhameeyay jaamacadda 2009, waxa uu ku biiray ciidamada qalabka sida. Waxa uu tababar militari ku soo qaatay xero ku taalo dalka Morocco. Waxa uu ka qayb qaatay howlgal nabad ilaalin oo qaramada midoobay u dirtay sanadkii 2018. Waxaa sidoo kale laga yaqaanay dagaalka ka dhanka ah kooxaha xagjirka ee waqooyiga Burkina Faso. Sanadii 2020 waxaa loo dalacsiiyay darajada kabtan. Kacaanka militari iyo xukunkiisii, Traore wuxuu door weyn ka qaatay afgembigii dhacay Janaayo 2022, balse markii uu saluugay hogaankii cusbaa ee Paul Henri, wuxuu bishii Sebtembar 2022 hogaamiyey afgembi kale oo xilka looga tuuray Damiba. 6 Oktoobar 2022, Ibraahim Traore ayaa loo dhaariyay madaxweynaha ku-meel gaarka ah ee dalka Burkina Faso. Aragtidiisa siyaasadeed, Traore wuxuu caan ku yahay aragtidiisa qarannimo iyo madax bannaani. Wuxuu si cad uga soo horjeestay saameynta Faransiiska ee dalkiisa, wuxuuna xoojiyay xiriirka uu la leeyahay dalalka kale sida Ruushka. Wuxuu sheegay inuu diiradda saarayo ilaalinta kheyraadka dabiiciga ee dalkiisa iyo dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada. Traore waxa uu helay taageero ballaaran, balse sidoo kale waxaa jira walaac laga qabo dib u dhaca doorashooyinka